waxaan rabaa in yar inaan idinla wadaago xagga sare aan ka soo eegno ahmiyadda statisticsku ama helidda xog sugan ay u leedahay dowladnimada sideedaba dowlad horaal looga mahmaahayo waxay yiraahdeen war dowlo waraaqba ku yaal waxay kaloo inoo sheegeen qolyihii kalamaan oon cilmigu ku yarayn qaran iyo qoys iyo qofba qorshe in loo helay rabtaa waxaa in badan dadka ajaanibta ee Soomaalida aan aqoon ay nagu ammaanaan inaynu baac mushtariga ku wacannahay anigu dadka aragtida su'aasha geliye baan ahay sababta aan ugu wacannahay ma inaanu cilmi ku dhisannahay sababta aan ugu wacannahay waxa weeye inaanu risk takers nahay Soomaaligu meel walba adduunku tagaya markiiba hawsha waa gelaya bal haddii riskiga aynu xoogay qorshe ah ku darno malaha adduunkaba waa qabsan lahayn sana min sanahi waxa maanta jira labor survey la sameeyay oo hay'adda iyo ay iska kaashadeen wasaaraduhu oo lagu cabirayo arrinta iyo cilmi baadhis lagu sameeyay nuglaanshiyaha dadka oo lagu dul dhisay barnaamijka la yiraahdo baxnaan ee daryeela dadka nugul xilliyada qaar marka waxaad oranaysaa war siree hawl loo geli karaa adigoon xog bahayn qolyahan waxaynu ku misaali karnaa hadda haddii qof xanuunsado qof markuu xanuunsado dhakhtarka toos uguma tago horta waa la soo baadhaa soo ma dawada intaan u qorin diagnostics-ki iyo xaaladii dhabka ahayd ee muwaadinka Soomaaliyeed deegaanada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ayay soo saarayeen heer qoys baa laga bilaabayaa guud ahaanna waa la isu geegeynayaa inta la ablaableeyay ahamiyad maxay markaa ku fadhida waxyaabaha xiisaha leh waxa kamid ah boqolkiiba 15 ka yar baa baasaboor haysta dadka ayaa meesha malaha aan ku arkayay waxa kamid ah boqolkiiba 50 400 boqolkiiba 50 literacy rate-ku inuu meelaha yahay inta caafimaad heli karta inta waxbarasho heli karta inta guriye leh housing waa waxyaabaha u waaweyn ee dawladdu ay ka shaqeeyaan dadku inay meel ay ku noolaadaan helaan iyo guryuhu intay ka kooban yihiin walaalayaal horta haddii xilliyada qaar dalkan cilmi baadhistiisu ay dabadda ka iman jirtay maanta waxaynu haysanaa hay'ado wixii iyagu sameynaya si loo helo horta mid baan rabaa inaan ku bilaabay adduunka ma jiro qoom faqri ka baxay iyagoon qarankoodu gacan weyn ka geysan maanta markaa dawladdii Soomaaliyeed deyn cafin bay ku jirtaa baad maqashaan dadaalo guudna waa lagu jiraa deyn cafintu mudday soo socotay maanta halkaynu taagannahay baan rabaa marka inaan laba qodob in yar idinka bidhaamiyo horta Afrikada aynu ku noolnahay ilaan inagu duul Ilaahay uu meel gaar ah ku abuuray manihina dadka Ilaahay baynu ka mid nahay waxay leedahay hiigsi la yiraahdo hiigsiga 2063 waxa la yiraahdaa Africa 2063 agenda waa qorshe Afrikadan dadkii ka hadhay ay rabto inay kaga baxdo saboolnimada faqriga dib u dhaca dhaqaale xumada koronto la'aanta iyo abaaraha iyo waayaha ay ku tilmaaman tahay innaga Soomaaliya madaxweynaheenu wuxuu dhawaan ka dhawaajiyay inaynu yeelanayno wax la yiraahdo qorshaha ama hiigsiga 2060 hada 60kiina way wadageedeen oo inagii qaranka noqonay 100 sano ka bacdi saynu u ekaanayna ayuu madaxweynuhu weydiiyay 100 sano ka bacdi waxa ka sheegi kara dad daraaseeyay saynu u ekaan karno mid kale aan idinku darayaa World Bank iyo markay dalka yimaadeen bay beri nala fadhiisteen waxayna weydiiyeen maxaa idinka qorshaha waxbarasho iyo caafimaad iyo horumarin waxaan ugu jawaabnay xoogay iskuul baan la wareegaynaa iyo xoogay hospitaal oo waxaasaan qabanaynaa waxay noo sheegeen halka aanu kaga jirno daraasaynta iyagu sameeyeen adduunka Soomaaliyeed iyo hawshan sugaysa intay leeg tahay iyo kharashka ku baxaya intuu leegay بالمثلا ريبورت شليدان أنو إيجيني أنجو أرمها استابيليزيشن ككتلينينا
waxa la yiri lacag 150 milyan ka badan baa waxay ku baxdaa waxa la yiraahdo essential health services dadka Soomaalida lagu daryeelo boqolkiiba 10 waxay ku baxdaa dhismayaal waa infrastructure boqolkiiba 50 waxay ku baxdaa kharashaad la siinayo howlwadeennada bahda caafimaadka boqolkiiba 30 iyo meelaha in ka yarna waxay ku baxdaa daawooyinka la keenayo maxaa noo geeyay marka inaanu arrintaa eegno waxaa noo geysay annagoo qiimeynayna sidee baynu adeegyada u geynaa labaataneyada degmo ee 15 sano gacanta cadowga ku jiray aan dawlad weligood arag xogtii aanu markaa aadan yabaal iyo xaradheere iyo ma arkaysaa ceelbuur qorshaha aanu ka leenahay dawladahan inaanu adeeg gaadhsiino xogtii aanu ku dul dhisaynay iyo populationka waxaanu ka soo dheegaynay qorshaha qaranka iyo reportyada hay'adda statisticada oo noo sheegay sida populationku uu yahay iyo habnoloodku siduu yahay awal waxa la oran jiray wixii loo helo ha loo geeyo oo caado Soomaaliyeed baa shir markay tagayeen waxay ku leeyihiin war maxaynu yeelnaayo waxa la inaga yiraahday waxa la ina yiraahday wax ka oranayna bay ku leeyihiin arrintaas qorshe la'aan bay tilmaamaysaa adduun weynahan aynu marka dalkeena iyo adduunka inaynu isku xidhnayno rabnaa hadda waxaynu ku jirnaa dib u xoreyn liberation aynu cadowga kaga faramaroojinayno dhulka iyo deegaanada ku habsanayn waxa barbar socota wax la yiraahdo stabilization oo la gaarsiinayo dawladnimada deegaanada waxaynu la tacaalnaa oo ay had iyo habeen la inaga caawiyaa waliba arrinta saamaynta abaaraha iyo sidii ummadda looga samata bixin lahaa macaluul maantada aynu joogno waa gugii lixaad ee roob yari dalkani ay ku habsatay ma aha arrin inoo gaara waa arrin saamaynteeda ugu weyn ay saamayso hoonkan afrikaynu ku noolnahay afrikada guud iyo adduun weynahaba waxaynu u soo labisano tayo u soo xidhannay dad populationkiisa badhkii uu halis ugu jiro in macaluul uu halis u galo qorshay u baahan tahay nambaray u baahan tahay ku talagal bay u baahan tahay waxa sababa oo keena amuuraha arrin caam ahaan adduunka oo dhan hadda uu la baaxadegayo oo la yiraahdo isbeddelka saamaynta isbeddelka cimilada ruuxii Soomaaliga hodan ahaa waayo ka hore 300 ariya haysta iyo xoogay geela isagoo dawarsanaya ayuu magaalo weyn cidhifkeeda imanaya qorshay u baahan tahay waxa markaa waxa soo dhan barbar socda dawladdu daraal nuucay bay ku jirtaa si ay arrimaha u xalliso dawladdu waa la idin sharaxay qorshe qaran baa jira qorshaha qaran waxa udub dhexaad u ah waxa la yiraahdo istiraatiijiyadda yareynta faqriga si loo yareeyana dadkii inta cunto la soo ururiyo la siin maayo dadkii fursada loo abuuraya shaqa loo abuuraya jawi investment baa la abuuraya wasaaradda qorshayntu waxay hadda geysay golaha shacabka laba sharci midna uu kobcinayo oo promote gareynayo investmentka midna uu samaynayo protection u samaynayo ilaa maalgashadihii waa in la ilaaliyo xoolihiisa iyo hay'adii waxa maamuli lahayd waxa barbar socda sharciga la yiraahdo extractive industries dalkan dahab iyo diamond iyo wax badan baa ku jira culimada qaar waxay sheegaysaa 100 milyan dahab gaadhaya in dalka laga dhoofiyo iyo minerals qorshe in loo dejiyo u baahan tahay marka poverty reduction xilligii dadku ay dawlad u wada shaqayn jireen dawladii ay lacag wada qaybin jirtay sabanka waa laga baxay dadka fursad baa loo abuuraya fursadaasna vehicle-ka ugu weyn ama gaadiidka ugu weyn ama awrka gurgurshaaga ee lagu guuraya waa waxa la yiraahdo marketka waa suuqa waa in la helo suuq furan oo dadku ay shaqo ka helaan oo ay ka adeegan karaan oo ay nolol ka abuuri karaan doorka dawladdu markaa waa jihayn iyo hagid ee fulin ma waynu aragnay private sector-ka Soomaaliyeed sida ay wax u qabato marka fursadda la siiyo telecommunication-kana waad aragteen daraalo balaadhana hadda beeraha iyo kalluumaysiga ay meel bay ka jiraan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado Soomaaliyada 2060ka aynu rabno inaynu aragno
waxay ku xidhan tahay cilmi baadhista iyo sahanada iyo xogta aynu samayno haddadan qorshihii